عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لهي خالي ولا شيء حمد علي محمد هلك أنا جلس عطانا وحمد حالي جنال ما أنت إيه مقال كله أو هرله أو عصب إيه ألابيه أكبرتين حمد حالي ما أنت محيدين كنتي قبل بدن أو أبيال أو حاجران يقصوا عصدين قوياش سريرها يداهي اسمها تنجرين أيام بزي ما عصب أي عيدين كانه بزي ما عصب أنهار الله أركن أي عيدين كانه waxaan naftayda la jeclahay ana naftiina la jeclahay maanta waxaan joogaa guriga walaashay waxaan rabaa inaan idin tuso go'yaasha iyo daahiyada isla on keenay saxaabay go'aan wuxuu wataa waa laba barkin afar barkin ma wato sariirta anaga go' noo saaran oo bleenka cadaanka ahaa wato barkimahan kale عصب عالم كجعل هبلها عصبنا عاشقة جعل بي سوماليدو تراهدا هلغو سو ياعا هدا هلغو سو ياعو ان كلا رب بدن ديزاين بدن ليهين لبا حبه هدا idin ka tusaya insha Allah wadaahi iyo go'ay sariirta iyo labadiisa barkin hadaa rabtid adiga afar barkin inuu ku noqdo afar barkin oo dharkaaga waa lagu tulayaa waa lagu diyaarinayaa needka hadaa rabtid anaga aad meeshas cadaana noogu jiro hadaa rabtid adiga gaduuda ka dhiganay hadaa rabtid madooba ka dhiganay hadaa rabtid sideenoo kala cadaana ka dhiganay marba sidaa rabtid xitaa guriga moogta alaabta markaa gadatid markaa maanta isticmaashid ma tuuraysid markaa dhaqdid triibka dambe markaa iska bedelaysid waxaa u isticmaalaa need gaduudan iyo daahiyada isku xiranay iyo go'ay barkimahan baleenka ah oo cadaanka ah meesha cadaanka ka yihiin gaduuda ka dhigay marka kaleeto nayd balaagaha geline barkimahan gaduudkii cadaanka u soo isticmaashay balaaga u isticmaalay marka sida aad rabtida marba u bedelan kartaa roogaaga oo ku maajin gareysanaysa mar walba waxaan jeclahay gabdhaha Soomaaliyeed ee walaalahay ah inaan wixii aniga cajabiyo oo qanciyo oo dooqeyga noqdo ayagana ay dooqooda noqdaan oo aan uga faa'iideeyo si ay ayagana uga faa'iideystaan marka hadda daahan iyo go'aan iyo barkimahan iska soo bedelayna design kala ku googlanayna oo ayagana ma sha Allah arjayna inay indhihiina soo jiitaan isla socod wanaagsan waa kaas qofkii rabo afar barkin oo dharka uu dalbado waa loo soo sameeynaa qofkii kale hadda anaga waxaan noo diyaara go'a iyo laba barkin hadda adiga rabtid afar barkin oo isku eg waa lagu sameeynaa hadda rabtid laba barkin oo bulayna iyo laba barkin oo go'a u eg waa lagu sameeynaa adilay kugu xiran tahay jeebkaaga ku xiran tahay qiimahan uu idin raali gelinaya marka hadda qaybtaana ka gudbaynaa qaybta kale u gudbaynaa qofka qaado dhexda ka dhiga dhac alaabtan soo qaad halkan soo saar wac guriga markii la soo kala nooc kale tabo kan hadda waa iska bedelnay kii kale aan ku bedeli lahayn aan soo saaranayna marka de maamo weyn oo idinku hor foorsanaysa waa ceebe gabdhayga oo tababaran oo aniga xitaa meel fariisi idahayaan u dhiiba shaqadan ayaga qabanayaan insha Allah
markaas sariirta saas u soo gogashid aniga gabdhahayga idin tusaan gogasha oo idin gogleene marka sariirta saas u soo gogashid oo aad sariirtii ugu isaarnaa iyo daahidii match iskaga dhigtid isku matching gareysatid unsigaaga qac ku siisatid gurigaaga uu noqdo guri indhaha iyo nafta iyo qalbiga iyo meel walbaba markii laga arko la dhahayo maasha Allah tabarakallah alaabta saas ay ku noqoto cudki iyo unsiga iyo alaabta carafta isku dardartay aad saas ku soo yeesho daahida daaqada inta xirto hoostooda saas aad tiraahdo ya daaha naftirkiisa waxa la rabaa carafta inay dhuuxa iyo ludda iyo laftaba ka gasho marka asxaabta qaaliga ah waxaan idin leeyahay ka faa'iideysi wacan waxaan jeclahay mar walba waxyaalaha idinka aad jeceshihiin oo indhihiina soo jiidanayo idin anfacayo gurihiina aad uga faa'iideysan kartaan awlaadiina aad uga faa'iideyn kartaan waayo hooyo walba oo gabar dhashay sida ay hooyada gurigeeda u dhaqato ay birina gabadheeda u dhaqmaysaa marka haddii gabadhaada ay aragto adoo gurigaaga mar walba taagan yahay geejinaayo hagaajinaayo maxay ahayd indhaha aad jeceshahay mar walba xaajiga inaad soo jiidato raali gelinaysid naftaada nafta xaajigaaga awlaadaada biri wixii adi ay kaa dhaxasho gurigeeda la tagaysaa gabari waa hooyo horaa loo yiri ama waa hooyo sidaa aad rabtiin buu qaata ayagaan uga mahad celinaynaa tarbiyada quruxda badneed ay nagu soo tarbiyeeyeen annagana waxaan ku dadaalaynaa markaa inaan awlaadeena sii tarbiyeyno awlaadeena waa inay arkaan inaan annaga nahay dad noloshooda jecel inay mar walba horumariyaan si biritoola gabadhaada ay kaaga dhaxasho waxa adi maanta aad ku dhaqmaysid ayada ay kusoo ababayso biritoole ayadana ay gurigeedii ilmaheeda ay ku ababiso sida haddaba ay arkayseen sariirta sidan quruxda badan u goglan oo maasha Allah indhihiina soo jeedinayso waxa u goglay waa gabdhahaygii yaraa habartaa ahaa waana tarbiyadii guryahooda ay ka qaateen iyo dhaqankii la baray marka maxay aheeday aan ma ahan inaan anaga kaliya aan horumarinayno nafteena dadaalayno guryaheena iyo maxay aheeday leenahay xaajiga la qanciyo hal raali geliyo indhihiisa la soo jirto maxay gurigaaga qurux badnaado taas xitaa waxa ku hoos jirto inay gabadhaada ku ababayso nolosha adiga aad maanta sameynaysid biritool ayadana ay gurigeeda la tagayso u dir ayada shaqeeda qabo waxaaskeen maanta markay wax qurux badan kuu soo qabato u hambaliye laakiin marka u hambaliyeysid oo dhahdid maasha Allah wax qurux badan ay soo qabato hooy waa mahadsantahay saan waa laakiin laguma gaarine si socod badan ku dhiman waxay hiigsanaysaa wixii u dhimanaa wax isleedahay wax ku dhiman soo ogow marka sirta nolosha ka mid tahay taas naftirkeeda asxaabta qaaliga oo ugu xiran gooyaashana arkaysiin color walba ay leeyihiin hortas gaduudka ayadoo black hele ayadoo blue navy hele color walba ka helaysaa ana hadda waxa gooyaalo dhan inaan sariirta ku soo goglo daahi dhan soo xiro shaqadaas dheer waxa iiga muhiimsan inaan idin tuso wixii cusub oo imaadeen soo dalbataan imaadaan hadda anaga daaha noo xiran wuu cad yahay laakiin adiga haddii aad rabtid daaha waa cadaan iyo gaduud needkana wuu cad yahay adiga haddii aad rabtid gaduudkaas needkaada waa ka dhigan kartaa haddaad rabtidna balaagaas yar ee ku jiro oo loofka ah waa u bedeli kartaa waa gashan kartaa wax walba kuu galaa barkintaan cad meesha ay kaga jirto gaduudaa gashan kartaa balaagaa gashan kartaa maalinba nooc u goglo sariirtaada daahaagana maalinba need cusub u xiro kastamara buuxo qaylinaya alaabta u fadhiyaan raalli ahaada waxaan idinkaga sii tagayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu